ayaad bedeshaa waana jeclaa zaa'id oo jecel maxaa la yiraahdaa bal waxaad iga warantaa maxaa la yiraahdaa ishaq yaa ka mid ka bedeshay maxamed cali kii journalistka oo ATN ka shaqeyn jiray زائد وجعل عد كيسنا إلا يرانتي عن قفصن جري محمد علي كيتي إنك شقية مركا محل هذا إيش بل إن تصبل معناها هو غير كما جينا نايتو أحمد أبو بكر نايشي متا وإسلي نالو نينافورها سانا نيكو كوا RTN show نالو نيكو نا انترفيو نا إغلان يعني إغلان شو سانتي سانا ما شاء الله أبو ما تنتهي بل أنت أب صومالي ما قلت شيء ولا لها بركة ها يعني محان ده مقعيقا وأحمد أبو بكر أو ديجين مقالة إسلي مقالة حافظة إسلي حافظة إسلي يعني أو ما أنت فرحسن أو RTN شو TV RTN أو كمرقاتة أو كمرتقالة ها هي مرتقالة سمعنا جيجينا ما شاء الله في عنده هي يوم ما أنت محل أو لا يورثنا يا يورثنا إغلان يورثنا أو إغلان شو لا يورثنا ما شاء الله إلهي حكوا بركة أنتم معنا لقبها أتكو هذا الشيء أتكو هذا الشيء بل لقطة صواحيلي قوابتكو هذا شيء واقع كاس ديلي كسوة ديلي أوكي كوكويا نواتكو هذا شيء كوكويا ها نمويغا كويغا وطنا وورو سلام واي marka luqadaasna waa luqada kuukuyada waa lahjintaasi okay waxaad ku hadashaa oo kale English af Somali iyo Spanish marka Spanish kana bal waxaan rabaa iyagana inaad yar Spanish Tercer malo yo soy el metal me voy acercando yo mal del plano se le compensa lo si le repulso waxaan rabaa inaad af Somali nagu yar turjintid maxaan dhahay dhamaan waan salaamo kulligiina يعني سيف عن أفصومال يعني أفصومال ما قاموته سيدو لو ديجيمو يعني حوغير ما يوض في عنته إلهي كبركة بس إنجليزتا كشاك إنجليزتا أوكي يعني واد إنجليزتا كترجم إنجليز كترجم like I say hi to everyone and today I'm here I'm so glad I'm here and I'm very very happy to be here واو إلهي كبركي إلهي كحافظه إن وحن ربع توادي كانوا محيه توي إن مركان سوود السعونين واحد يقول تري أهورو كينياتا مدحوينها هذا كان كينيا أهورو كينياتا أيانا إستجنا محيه توي I love him very much أهورو كينياتا tuko pamoja ما حاطين أهورو كينياتا tuko pamoja واو جوبيلي جوبيلي tuko pamoja واو ما شاء الله marka isagana ma saad u samaysay gibi u samay shairi la poem shairi gibigiisa isaga keligii keligiis waa gabay haye oo gabi oo 5 sano hada 5 sano ha montay 5 sano kale oo dhiman 5 sano wuxuu sameeyay ay ka tirsan tahay haye marka adaa sameeyay yani adaa sameeyo qaaday aniga ma sha Allah ilaahay ku barakeey haye bilwaaye isag shairi pongeza uhuru Email ya ugambo wa Kenya tuamkeni ila ugambo ina jambo mulomba nisikieni uhuru tondio nyimbo awengine kazi gani Kenya yetu inapa uhuru tukupongeza maendeleo endelevu Kenya mzima umegawa wewe ndio mkakamavu tutakuweka mambo sawa wala kuisi mchovu sisiri wamepagawa Kenya yetu inapa uhuru tukupongeza ahadi zako si feki ni kweli wategeleza mashina ni tola keki umeme umeeleza na shule hatuandiki paka talisi za cheza Kenya yetu inapa uhuru tukupongeza umekusha uskota o bara kote hadi pwani ati nini kimepata o mfano kule Likoni hadi Kwale na Taveta o umezita mikononi
Kenya yetu inapaa uhuru, twakupongeza. Afueni kwa mama, umejenga mataniti, wajifungua salama bwerere bila ya senti. Umeboresha huduma katika kila kaunti. Kenya yetu inapaa uhuru, twakupongeza. Uhuru umeukata utata ulokanganya, taka zamo zilopita wengine uliwachanganya. Leo haki wamepata wa makondeni wa Kenya. Kenya yetu inapaa uhuru, twakupongeza. Asante. aliya isag huru weligaa ma meelu joogo ma tagtay ma la kulantay Uhuru Kenyatta madaxweynaha Kenya? weligay lama kulanin, laakiin waan jeclahay. aad iyo aad aan u jeclahay inta la kulmo. ilaa hadda aragtid inaa arko meelaha la iga soo baxo waa kan aniga allah soo isku farxi lahaa dhulka bas la dhici lahaa. marka waxaan rabaa bal ma sha Allah sidii kulli waad qiirootay iyo sidaad u qaaday aad baan ula dhacay af Soomaali bal noogu yara sheeg dadka aan ina daawanaya caalamka inaga daawanaya. ma sheegay af Soomaali yani macnaha amaanta Uhuru Kenyatta wuxuu qabtay amaanta wuxuu qabtay haye horumarku dalka gaarsiiyay yani waxay ka hadlaysaa saa marka maxaa la dhahayo maternity meesha ilmaha u dhadhalo waa meesha maxay tahay dhakhtarka horumarka maxay tahay dhalaanka iyo hooyada meeshas oo ilmaha oo yani dhakhtarka ilmaha lagu dhadhalo waxaas buu hagaajiyay asaga sameey oo magaalo kasto Nairobi, Nakuru, Mombasa meel kasto ay way joogaan. haye dadka oo dul xaq u leh xaqooda waa la siiyay. haye iskuulyaasha macaalinka iskuulkeena buugyal kuma qorno oo isma daalino computer bas isticmaalno laptop buu noo keenay. ma sha Allah haye oo dawladda ma sameeynin oo asaga naftirkiisa bayno asaga laga iskuulka maxaa la rabaa dadka New Pumani Primary School. okay asaga baan laga balan qaado dhahay ardayaasha oo iskuulyaasha dhigto primary maxaa ni keenaya laptop baan ni keena asaga naga balan qaaday.